baa ugu qoran oo waa nin carabi ku hadla Soomaali laakiin shuruudaha la isku daranayo kuma jirto inta luqad ما لكن نفس اللغات بكل اسكن عنين عبد الناصر هذا بكو سلام يا ودنا حسبتي هاي عقب دغ maxaad ku dar la intaan uu gudbin Samattariyo asxaabta kale ما Samattariyo iga horeysay waa caadi waan ka dambeyn doonaa reechibu tiban soo dhaweey warnaa shakuro waxaan baliyaa waad ma santahay shakuro ha ma waa sax weeyaan بلينا نحن بليه مداية كل دواء وان اسكندريمي ايو waxa weeyaan حسن شيخي كان ugu weyn anaga u sameynay Soomaaliya u sameysay dinka ugu weyn non dhageyso waan ambaleynayaa insha Allah laakiin anigu kulay fikirkan ka haysto iyo Djibouti waxaan ka aaminsanahay marnaba الله يساق وحنقصيهين يساق وحويان أكاديمية وشكسرين سي أكاديمية وشكسرين بالجو سمتر لما لا عايش كورة كفتمينه وحنو كادي ما ولا الجو هرت haddii xitaa isaaq laga hadlo ma ku imanaysa sababta haddii isaaq laga hadlo xitaa dadkii dhigooga u horay weeyaan dahabkooga u iibiyay guryahooga u iibiyay sidii Faransiiska looga saaray maxaa marka maanta aad ku kuwi wala safato marka mayada maanta waxaan ugula safanayaa sidan ugu lisay iguma hambayn marka miyan daba socda 18 May dhowr jeer ka qayb galay xafladii 18 May marka gooni goosadnimadan kula safanaa taas bareereed cadii sallallahu alayhi wasallam ambaliyada ma hambaliyay Samatar siibank هاي سو dhawaada asxaabta shakura waad maasantahay horta Allahu akbar waan guuleysanay waxa guuleystay dhamaan mashruuca Soomaaliyeed oo dhamma guuleysatay aan kulli adiga shakurow nin afahmaysid luqadda inay wax tartaan ku sheegay ninkaas maanta qoomiyada Afrika ka soo horjeeda cid kaaga af celinaysa ma jirto afka hooyo aad ku hadaysid yuu kugula hadlaa turjumaan uma baahni kow luqadda waxaba qiimo ku leedahay nin kasto English ku hadlo ku afahmaya Afriga ku afahmaya Soomaaliga Faransiiska Carabiga and so forth and so on marka waxaan doonayaa shakooyina ku sheego ninka Roylandiga wax kale ma soo wadin wuxuu soo waday isku dhaca Afrikada oo Imaaraadku dabada ka riixayo ina Afrikada la kala googoyo ay ugu horeyso ina Soomaaliya kala gooyo taana waxa weey Ilaahay baa naga badbaadiyay waxa Suudaan ka socdo ogtahay horta aan shakura waan mid weynaan faahno taa fahmina waxa weey ma nabad baan ku doorsanaa dagaal iyo hub ku doorsanaa nabad baan ninkaasi soo sidaa umana horjoogo ma noqonayaa dhow la googooyo iyo Imaaraadku oo dabada ka riixayo Imaaraadka waan la galacsanayna hadduu ganacsi noo wado meel kasta ay joogaanba laakiin hadduu galo idinka waxa idin taala reer Djibouti in xaafadan balbala iyo dadkan nolosha dayacan ku nool inaad u hagaajisaan laakiin wixii kala go'ay iyo waxa isku biiraya idinka shaqadiina ma horta waa shakuro dhegeyso markaan ku dhaado hadal wada hadli doontaa reer Djibouti nolol inuu u sameeyo Ismaaciil Cumar Geele ayay tahay muhiimadooda koowaad haddii Soomaaliya kala go'aysay iyo hadday isku biirisay iyo hadday 1991 lagu dhawaaqay Somaliland iyo waxaas idinka shaqadiina maaha marka qoladan African Unionka timid hadda waxaa jira dad badan oo African Unionka uga ololeeya Somaliland oo halka uga ololeeya waxaa jira mission ay soo direen African Union waxaa jirta paper ay qoreen 28 wadan oo African Unionka ku jira waxaa jira rag goob joogayaal oo la soo diray minbar ilaa galbeed maray qoray wali miiskay saaran tahay waqti ay timaadaba way imanaysaa marka adigu ka reer Djibouti ahaan waxa kula gudboon dadka reer Djibouti iyadoo Djibouti dagaal ka jirin qurbaha ku bay hoofaya halkan Belgium jooga Faransiis jooga Sweden jooga Norway jooga Europe ku daadsan iyagoo wadankooda aan dhibaato ka jirin ceeb bay tahay kuwa waxa weeyaan nolol loo sameeyo kuwa gudaha jooga biyo nadiif aan haysan electric koronto la'aan ay hayso biyo nadiif aan haysan iyaga laftoodu magaranaysa ay kaneecada cunayso kuwaas Samatar inaad time badan aad geliso kula tahay laakiin Soomaaliya inaad ku lumiso waqti badan iyo Imaaraadka
iyo wax anaga noo dana imaaraadku dan baa anaga nugu jirta inuu imaado inuu halkan ka shaqeeyo imaaraadku anaga dan baa nugu jirta in Cumar Geele habeenkii la soo seexayay ku noqo timeline-kayga Twitter-kayga siirayo ayaa joogay maalintii xafladii caleemasaarkiisa doorashadiisii waxay ahayd maalintii la seexayay heshiiskii DP World way ogaayeen reer Djibouti way ogaayeen dowladda Djiboutina way ogaayeen si ay ugu sheegto ay garan weyday waftigii ka yimid Hargeysa Axmed Siiraan hogaaminayay wasiirada lahaa markay xafladii kala qayb galeen ninka dekedaha u qaabilsanay wuxuu la baxay wasiir Cali Marixaan buu la baxay wuxuu ku yidhi wan ognahay halkaad u socotaan oo imaaraad iyo DP World aad heshiis la soo galaysaan waxaanu idinka digaynaa maadaama DP World anagu aan hayno inaanay horta kow eed nooga soo qaadin oo nimanka aydan noo soo raacin talabaad iska ilaaliya wadad xune maxaaba iska ilaaliya wadad xune anaga unu kala ganacsanayna oo reeri maanta waxa la seexay 25 sano la seexay almost waxa tagay in ka badan kala badbaad 17 sano way ku dhawday waxaan u maleynayaa taramkii koowaad ee Siiraya la seexay labadii sano ugu horeeyay 5 sano oo Siiraya 7 Muusa iyo hadda almost kala badba hadda la maraya oo heshiiskan u galnay heshiiskan waxa weyn successful mu noqday imaaraadkuna happy ku yahay anaguna happy baan kunay laakiin reer Djibouti may rabin waxaan jiraa dowladda reer Djibouti ma dowladda Djibouti may rabin in heshiis halka ka dhaco in meesha mandaqadan cid iyaga kula tartanta ay timaado laakiin taasi ma shaqeynayso reer Djibouti waxay muhiimadoodu tahay in ay gudahooga ka shaqeeyaan Soomaaliyada ay shacabka u tumaysaa imika ay moodayaan nasteexa waxa kula jiraan qori double bay kula jiraan laakiin halkan in cigaalo kale waa kii ogaa qori faraara la bisaa iskaga hay halkooga ku xidhay xadku iska xidhxataa dib uma furin xadka wuxuu ogaa inay fidno waxaan ahayn aanay la soo galin shacabka Djibouti ma haysano laakiin nidaamka meesha ka jira ee toxica kanu saaysanaa waa kaas weeyaan marka Samatar hadaad meelaha kala gasho waxaan ku furay beejaj kale ka hadal reer Djibouti waxa uu wanaagsan iyo doorashada halka ka dhaxday horta shakuur waad maasan tahay anigu waan ku soo dhaweynayaa laakiin hadalkii waad iga booftay albaab badan waad garaacday laakiin dawada ku furan yahay meesha ay ku furan tahay imika aan waxaan ka hadlaynay doorashada meesha ka dhacday iyo ninka ku guuleystay waxaan anigu rumaysanahay inaad afkan ka ahayd inaad ninka Kenyaatiga ka taageertid laakiin inaad Maxamed Ali Yusuf la socotaan anigu rumaysanahay maadaama nin Soomaaliya tahay oo anaga maarta diir noo kala dhaxaya ma jirto dhibaatadu meel kasta way saameysay waxa aad sheegto dhan kuma beenaynayo xaja kuma beenaynayo laakiin waxa weey dhig cusub aan isku wala shubaynaa waan wala hagaajinayna nin kasta wixii ka khaldan uu hagaajini laakiin anigu waxaan ka soo horjeedaa anigu kuma diidinaya horumar gaadhid anigu hadda horumarkaaga waa horumarkaygana waa horumarkaaga ma fahmaysaa laakiin waxaan diidanahay inuu nin noo imaado na kala googooyo na kala qobo oo maartay meesha laga dhaliyo colaado hor laga dhaliyaan diidanahay anigu waa kula rumaysanahay inta aad sheegto dhan waxaan kugu diiday ma jirto waxyaalo aad ku dardartay ma ahayn inta kale kuguma diidani laakiin maanta ninkani muxuu soo waday ninkan Kenyaati wuxuu soo waday inaa hub iyo dagaal hor la eeg meesha ka dhacaan oo imaaraadku dabada ka joogo imaaraadku markuu maalgashi wado waan soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa horta mid waa inaad rumaysid Shakuurow nin u xidhan ma jirto nin u xidhan bad u xidhnaanaysa ma jirto horumar u xidhnaanay ma jirto Muqdisho Hargeysa ma xirnaanayso Djibouti Hargeysa ma xirnaanayso nin kasta wuu shaqaysanaya horumarna waa la gaaraya tawqurata aan maanta diidanay waxa weey ina maarta hub iyo dagaal hor la ka dhacaan anigu runta been kuma sheegayo maalintii Djibouti safiirka Djibouti ee Kenya u jooga uu yiri gadow waxba kama dhicin Kenyaatiga oo laynaya maalintii yiri waa maalinta farmaajo taageeray ilaa maamulka taaban ku taageersanay maxaan ku taageeray dad Soomaali oo la laynayo oo ninkii aniga matalay yiri meesha waan tago waan soo eego waxba kama dhicin baash xagga baan kula jirnaa Shakuurow xagga baan kula jirnaa anuu horumarka Berbera horumarka Hargeysa horumarka cid dhulka Soomaaliyeed waa soo dhaweynaya taana sa u soo dhaweey laakiin imaaraadka taqwada ku diidaneen waxa weey iyo ninkan Kenyaatigu waana umada hub la isku dhiibo oo la kala googooyo Soomaali
adiga maxaa kaa galay Soomaali adigu maad ku soo biirtid Soomaaliya marka hadad midnimada Soomaaliyeed hadad midnimada jacayl ku soo biirde calanka waxa ku taalaba waan ku soo biirinaa anaka Djibouti hadaan qoomiyad Afraan la deganayd ninkana Afartiibu u tagay xaggaas marka waxa dhici karta inaan xayaa ka soo geeyno Djiboutina ku soo biirto marka waa taas weey ka soo shaqay taas oo waxba tan wax ku luminay Samataro waa hareeraysan tahay meegana siiyade waad soo bodboodaysiin moogti ما يودي من هنا سمعت رواد مع صنتي ريتش انت اللي قلت لي واحد بقى اللي قلت له نيك انا معرق اللي صدر قليل ده حاجه يمدل دلي كره يمدل waxa jira qoliyo indhaha kaga soo riday baa jira halkan bilchimo waliba ninka dhalinyarta waan la kulmay halkan bilchimo marka hadii laga maqlo ma sirdoonkiisa ka rido oo ognay hadii laga maqlo in aad adigu aad ka shaqeynayso in Soomaaliya ay ku biirto Djibouti wallahi amaankaaga khatar ku jira marka anigu bee kuma sheegayo anigu waxaan rumaysanahay Soomaaliina kalmaarsamayn yaan rumaysanahay runta ku sheegaya been kuma sheegayo inay kalmaarsamayn ama Djibouti ha joogo ama Ethiopia ha joogo maartay balgulaha joogo oo maartay xadka maartay dacwale ha joogo shakuurow أنا قريب أقول لك حكيت والله صعبة وريت بوتي عادي جاي يقول ريت بوتي أخي جاي يقول كان وهاليس أروى هاي إيه ركبتنا وقدري نكمل مديان قدري يا شيخ وين ودري إن شيخها وين إنك يسوات هاي واحد ما كسكش كيسا قبيلك كدا ده كيسا كرجوري هو إريني صور دوين تكشقة dadka isku tol ka shaqeeyo horumar ka shaqeeyo sidoo abaaba uga shaqeeyo maartay marka tan wax ugu bogaadinaya midayo marka guri ooliya ku soo kortay marka sida naajiha noqon masha Allah hay salaam alaykum barnay taan naaji ka reeb saaxiib naaji ka reeb waa waqt waana kale inta kaftan beed السلام عليكم واقول إما كان هرب دوننا إما كان عشاننا قلنا وراننا صاحب سبيس وين فيدي سمترو سبيس وين هذه فرينا دبالدق مدحنا قرنك حفلد وين waxaan ugu yeedhaa xaaji Foosiyana ugu yeed Shakuur idadii ugu yeed gabadhaas waa gabadh Soomaali wax u qabatay jaamacadda ugu Hargeysa ka dhistay laf dhabar u ah arrimaha dibadda Soomaaliya meel gaarsiisay gabadhan ugu yeed hadaad karaysid horumarka la duuliso wax ma iyadu waxay taageertaa gooni goosadka taageertaayo ma jiro wax gooni goosad oo ka malolo maqlayaa barbaro reelo dinga oo leeyahay samataro Foosiyo khayr Allah siiyo gabar hal su'aal gantay laakiin hadda waxay u oleynaysaa reelo dinga marka akada Soomaalnimo aan ugu hiilinayno hadda laakiin yana xar wahayn baday hadii madaxweynihii wadanku uu ka maarmay qofkii wadanka u tartamayay oo wadanka campaign cusub sameeyay shukuro midaya dhigayso hadii madaxweynihii wadanku uu ka maarmay qofkii isaga metelaya magaciisa iyo calankiisa metelayay uu ka maarmay uu taageeray wadan kale maxaad iyada ugu diidisay inay cid kala taageerto miyaan xaq u lahayn madaxweynaha wuxuu taageeray dal walaal ah oo Djibouti oo Soomaaliyeed iyadoo dal walaal ah halka waxa degan dadkiiga degan Soomaaliya ma fi dadkaas Djibouti Kenya isku mid ma ahantay hadii laga tago xitaa Soomaali isaaq baa degan Soomaaliya abari oo isba degan garxajis baa halka degan iyo beela kale oo ma shukuro almar waxay siisaa hambaliyada ila meegiga dadka ما سنتها شكور هي سمتر هذا وما سنتها وانا الشخصية يسوع جلسين واقعتي وانا شكورنا ولا كفت معدات اساسا بيلها سوقاتي بيلها معنا امك عدبي لكن وابسل الامه الصوماليه الاسكوادو متقانا سمعدا والد كان ليلاني واجب وما سنتها نيو حوهم بلينا هرت محمود علي يوسف شعب ويناي جيبوتي